As you are all aware, we are going through difficult political challenges. sida aan dhammaanteen ka warhayno waxaan wajahaynaa loolan daran oo dhinaca siyaasadda ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah guriga ummadda ayaa hadda u qaybsamay laba qayb oo iska soo horjeeda isku dayadani waxa ku soo biiray siyaasad iyo xaalad amni sida aan aragnay Arbacadii waxayna taasi keentay in ciidamada Amison ay la shaqeeyaan ciidamada amniga si loo xaliyo xaaladda taagan howlgalka midowga Afrika ee Somalia Amison waxa waajibaadkooda ka mid ah inay la shaqeeyaan ciidamada Soomaaliya si loo helo amni dhammaan hay'adaha dawliga ah waa mid ay mas'uuliyad naga saaran tahay ilaalinta amnigooda waxaana kuwaasi ka mid ah baarlamaanka guddiga midowga Afrika iyo Amison waxay ixtiraamayaan madax bannaanida dadka Soomaaliyeed waxayna aqoonsan yihiin xuquuqdooda iyo kalsoonida ay ku qabaan hoggaankooda inay xal ka gaari karaan dhibaatada dalkooda uu hadda ku jiro si gaar ah xaaladda siyaasadeed ee hadda ka ololsan dalka ee baarlamaanka ka taagan Amison wax waajib ah kama saarna inay go'aan ka gaarto dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaankoodaba sidii ay xal u gaari lahaayeen dhexdooda sidaas daraaddeed Amison lama wareegi doonto guriga ummadda Soomaaliyeed ilaa madaxda sare ee dawladdu ay sidaas dalbadaan Amison will therefore not take control of the house of the people unless the competent senior Somali authorities request it to do so in full respect